kulanka dhalinyarada iyo musharax jabiye waa magaca munaasabad ka dhacday hotel Nayuureysa magaalada Garowe waxaana isku xog wareysanaya musharax madaxweyne Puntland Engineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye iyo dhalinyarada Puntland dhalinyarada ka soo qayb gashay munaasabada ayaa hadallo dhiirigelinaya amaan isugu jira u soo jeediyay musharaxa isla markaana Xuseen uu yahay musharaxa kaliya ee ka damqanaya shacabka Puntland markaana uu qalmo inuu qabto xilka madaxweynaha Puntland dhalinyarada kulanka dhalinyarada ee uu musharax Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye uu kula kulmayo dhalinyarada guud ahaan Puntland oo caawa ka dhacaysa magaaladan Garowe halkan aynu fadhino ee quruxda badan ay ka muuqdaan dhammaan waxa weeye muraayadii iyo intii ugu quruxda badnayd guud ahaan Puntland kulankeenu caawa waxa uu taabanaya dhinacyo badan nii ballan qaadayna haddaan nahay taageerayaasha Jabiye in murashax Jabiye uu free ka yahay jamaaco diimeed dawladda shisheeye waxa caddeyn idin noqon kartaa dadka garbihiisa fadhiya caawa haddii la damco in baasalka dadkan la isku soo ururiyo wax baatan oo laga helayo ma jirto isku reer maaha isku jamaaco maaha business gaara kama wada dhexeeyo waa dhammaan adyaaftii mataqaanaa reerweynaha dadweynaha Puntland aynu dooran xulanno qof aynu isleenahay wadanka waxbuu u qabanayaa dhaqaalihiisa iyo nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa kaliya buu ku fakarayaa aynu dooranno inaynu ka fikirno way murashaxiintu waa badan tahay laakiin waa inaan kala baxnaa waryaa maantay wadanka ilaah baa wax badbaadin karee dhibaatada uu ku jiro yaa daba qaban kara dhaqaalaha Puntland celcelis ahaan xogta aan hayo shaqaalaha dawladda iyo ciidamada 5 sano oo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweyne ahaa aniguna aan xildhibaanka ahaa celcelis ahaan marka la isu celceliyo intee mushaarka maqan intaad u malaynaysaa inay mushaar ka maqan tahay inay adeeg ka maqan tahay inuu kharash ka maqan yahay in mag ay maqan tahay intee u malaynaysaa 5 bilood 5 sano waa 60 bilood celcelis ahaan notebookayga waxaa ku qoran 2 sano iyo bar ka mid ah shaqaalaha iyo ciidamada dawladdu inaysan wax mushaar helin iyo wax adeeg min markaan in badan la sheekaystay in badan su'aalo weydiiyay runtii qofkii aan raadinayay wuxuu noqday ama qofka ka jawaabi kara baahiyaha asaasiga oo anigu aan arkayay su'aalaha weydiiyay waxa ka mid ahayd waxaan ogahay dhibka haystay dhalinyaradeen marka shaqo la soo dhajiyo dhibka ku dhacay shaqo la'aanta jirta intay leekayd jaamacadaha inta ka baxaysa tiradooda iyo shaqo la'aanta waddanka taala tahriibka iyo rafaadka ay marayeen waxaan ogaa dhibka haysta ciidamadeena mushaar la'aanta dayaca dhaawacooda aan la daryeelayn iyagoo aan wax tixgelina loo hayn iyagoo habeen iyo maalin u taagan difaacan gabagabadii waxaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyay munaasabada injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye isla markaana ka hadlay arrimo dhowr ah wuxuuna dhalinyarada Puntland u ballan qaaday haddii uu xilka ku guuleysto inuu siinayo muhiimada koowaad isla markaana uu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada akuma hogaamiyaha aynu doonaynaa hay'alay haddaynu wax badan soo aragnay maantana aynu khibrad leenahay 20 sano ah oo ay Puntland khibrad ku filan leedahay hogaamiyaha aynu rabnaa oo aynu maanta Puntland ku aaminaynaa waa kee runtii waxaan anigu leeyahay waa hogaamiye leh karti iyo hufnaan uma aynaan dooran inaan kelmadaha jeclaysanay laakiin waxaad ogtihiin inay kelmado samaawiye yihiin ilaahayna uu u doortay ummadda cidda ay shaqaalaysiisanayso oo ay xil u dhiibanayso inay labada kelmadood ku doortaaneen marka hogaamiyaha aynu doonayno ee karti iyo hufnaan leh waa inaynu ka eegnaa taariikh nololeedka dadka aynu wax u dhiibanayno waa inuu dib eegnaa malihi Maxamuud Khaliif keligii baa karti iyo hufnaan leh laakiin waa kelmadaha aynu doonayno inaynu wax ku dooranno marka sidaa darteed waa inaynu eegnaa qofka taariikh nololeedkiisa aynu dib u eegnaa
maxaa yeelay qofka taariikh nololeedkiisa waxaa laga dheehanayaa waxa uu qofka kanu yahay waxaynu niri 40 sano jir waa inuu yahay qofku ugu yaraan ka noqonaya madaxweyne dowlad goboleedka Puntland 40 sano waa taariikh dhamaystiran ilaahay baa markuu ka hadlayay muxuu yiri hatta idaa balaqa ashudda wa balaqa 40 sana waa qof dhamaystirmay way qofka 40 sano gaaray runtii waxaan doonaynaa inaanu muhiimadda koowaad siino dhalinyarada waxaad ogtihiin dalka Soomaaliya ama ummadda Soomaaliyeed khaasatan Puntland dhalinyaradu waa in ka badan 70% sidaa darteed waa in muhiimadda dawladda imanaysa ay ku wajahan tahay dhalinyarada campaign-ka karti iyo hufnaana waxa uu ku wajahan yahay dhalinyarada waa campaign-kiini in badan baan iri waa doorashadiini maxaa yeelay waxay saameyn ku leedahay mustaqbalkaaga mustaqbalka ilmahaaga ilmihiisa sidaa darteed in maanta aad looga fiirsadaa waa muhiim maadaama ay dhalinyaradu ka badan yihiin 70% waxa aan muhiimadda koowaad siinaynaa kobac dhaqaale in aan dhaqaalaha kor u qaadno oo aynu shaqo abuur si aynu u sameeyno waa inaynu helnaa dhaqaalaha oo kor u kaca waxaan dhalinyarada u qaban doonaa tartan ganacsi inay dhalinyaradu soo bandhigaaneen oo aan maaragtay aan hoggaanka u sii deyno potentialka ay leeyihiin waxaan ku tartan siinaynaa ganacsiga hal abuurka ganacsiga kii ku guuleystana waxaan u ballan qaadaynaa inaan ganacsi la dhisno oo aanu tusaale uga dhigno dhalinta reer Puntland waxa aanu bangiyada kala shaqeynaynaa sida Amal Bank, Dahabshiil Bank, Salama Bank iyo dhammaan bangiyada ku yaala Puntland in ay siiyaanin dhalinyarada deymo ay ganacsi ku galaaneen damaanadana ay dawladdu qaado maaha markii ugu horeysay oo kula noocan oo kala ay yeeshaan dhalinyarada Puntland dhowr jeer hore waxaa gobolada Puntland lagu qabtay munaasabad lagu taageerayo musharax madaxweyne Puntland injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye balse tani way ka duwan tahay oo waxaa kulan wada qaatay dhalinyarada iyo musharaxa Cabdiqani Axmed Maxamed Fantastic telefishinka RTN Garowe.